si kastoo la isugu dayay in wax looga bedelo dhaqan siyaasadeedka Soomaaliya soo ragaadiyay ee muddada dheer la iska soo dhaxlayay misana waxaa muuqata in dhaqamadaas laga maarmi waayo oo ugu dambeyn waxay noqdeen wax kastoo dhacay sidoodii hore sida baarlamaan mooshin wada madaxweyne iyo ra'iisul wasaare kala taga khilaaf siyaasadeed oo abuurma xilliga doorashada iyo beesha caalamka oo ku falcelisa cambaareen madaxweyne Farmaajo oo madaxdii kaga horeysay kursiga ku dhaliili jiray inay wada shaqeyn waayeen ra'iisul wasaareyaashii ay soo xusheen oo uu isaguba ka mid ahaa Kambala akoodna uu ku baxay ayaa maanta ka mid noqday liiska saaxiibadiisii hore isla markaana maray wadadoodii baarlamaanku la filayay inuu ka qaangaaro dhaqamadii hore ayaa isaguna muddadiisa miiska soo saaray laba mooshin oo xilka looga kala qaaday gudoomiyihii hore ee baarlamaanka iyo ra'iisul wasaarihii hore ee xukuumadda sidoo kale waxaa la rumaysan yahay in baarlamaanku uu kaashanayay madaxweynaha inay meesha ka saareen shaqadii aqalka sare oo haatan gudoomiyahoodii dibad wareegahay master Khayro asagana runtii ka nasiibiyo hoodo badnaa ra'iisul wasaareyaashii xilka kaga horeeyay marka la fiiriyo muddada 3 sano iyo barka ahayd oo xilka uu hayay iyo awoodihii dheeriga oo isticmaalay oo ah laba fursadood oo inay helin saaxiibadii kursiga kaga horeeyay ayaa isagana xilka qaadistiisa kadis ahayd waxayna dibadda u soo saartay in asagii madaxweynuhu ay khilaaf ku kala tageen sidaana wax uga mid noqday liiska ra'iisul wasaareyaasha khilaafka kaga baxay xindaabka dawladda kale inkastoo madaxweyne Farmaajo iyo ex-ra'iisul wasaare Khayre ay in muddo khilaafkooda hoos u qarsanayeen haddana waxaa la rumaysan yahay in shirkii Dhuusamareeb uu ahaa mid wax kastoo jiray dibadda u soo saaray maadaama uu madaxweynuhu Dhuusamareeb ugu tagay qorshe halis ku ah oo ay ra'iisul wasaare Khayre iyo madaxda dawlad goboleedyada isla diyaariyeen kaas oo ahaa in marka ugu horeysa meesha laga saaro baarlamaanka waqtigiisu sii dhamaanayo qorshuhuna waxa uu ahaa markii uu dhamaado shirka Dhuusamareeb in madaxda dawlad goboleedyada ay qaab wada tashi ugu yeertaan xubnaha maamul goboleedyadooda ku matala baarlamaanka iyo aqalka sare si marka ay ku kala ambabaxaan deegaanada laga soo doortay loo kala mashquuliyo iyaga iyo madaxweyne Farmaajo waqtigana looga dhameeyo marka la gaaro balanta kulanka labaad ee 15 Agoosto loo madlan yahay Dhuusamareebna la isugu tago iyadoo madaxweyne Farmaajo aanay xargiisa xoolo ku jirin dabadeedna miiska loo soo saaro in doorashadu noqoto mid dadban oo ay maamulaan odayaasha dhaqanka isla markaana baarlamaanka waqtigiisu dhamaanayo sida lagu kala diro balse madaxweyne Farmaajo arrinkaas aad uga goos qaniina ayaa soo xiristay shirkii Dhuusamareeb carabka ku dhuftay in baarlamaanka la iskula tagi doono markuu soo laabtana wuxuu gudoonka baarlamaanka dhagaha ugu shubay shirqoor loo maleegay isagoo ka dalbaday in ugu horeen meesha laga saaro saaxiibkiisa Khayre si uu kala dhantaalo awoodda siyaasadeed ee la diyaariyay waxayna shaxda Dhuusamareeb isku doon wada saartay madaxweynaha iyo baarlamaanka qorshahoodu yahay inay gacantooda ka bixin doorashada la filayo 2022 in dalka ka dhacdo iyo in la helo waqti dheeri ah howlahan lagu maareeyo maadaama lagu eedeeyay xukuumadii la kala diray inay ka gaabiso qabashada doorasho qof iyo cod waqtigeeda ku dhacdo waxayna labadooduba waa gudoonka baarlamaanka iyo madaxtooyada weli ku adkeysanaya inay waqtigeeda ku dhici doonto doorasho qof iyo cod ah inkastoo ay arrinkaas shaki weyn ka muujiyaan siyaasiyiinta mucaaradka ah ra'iisul wasaarihii hore maamul goboleedyada iyo dadka rogroga siyaasadda Soomaaliya haddana ciyaar siyaasadeedka madaxweyne Farmaajo iyo gudoonka baarlamaanku ay dhawaan soo bandhigeen kuma ekaan xilka qaadista ra'iisul wasaare Khayre ee waxa wax ka bedel degdeg ah lagu sameeyay shaqaalihii xafiiska ra'iisul wasaarihii hore qaarkood waxaana shaqadoodii dardar geliyay golihii la kala diray ee wasiirada oo markaan iyagoo ku meel gaar ah durba ansixin iyo magacaabis ku sameeyay toddobaadkan sharciyo iyo heshiisyo muddo dheer miiskooda yaalay sida heshiiska ka faa'iideysiga kheyraadka dalka heshiisyada Turkiga iyo Geeska Afrika iyo ansixinta golayaal garsoor oo sida la rumaysan yahay salka ku haya dhismaha maxkamad sare oo dastuuri ah oo kala go'aamisa go'aanada hay'adaha dawladda iyo muranada siyaasadeed ee dalka taas oo loo qaadan karo sababta keentay xilligan in qorshe kale laga leeyahay haddana waa tilaabo ay ku dhiiran waayeen dhammaan madaxda dawladihii hore ee dalka soo maray waxayna u muuqataa in meel marinta qodobadan uu in muddo ah hortaagnaa kuna fadhiyay ra'iisul wasaarihii hore ee Master Khayre
markaas indhafog lagu eego xaaladda siyaasadeed dalka waxaa hareeraha madaxtooyada ka muuqda walaac laga qabo siday wax u socdaan, balse madaxweynaha ee guddoonka baarlamaanka ayaa taa beddelkeed rumaysan. La soco qaybta labaad ee warbixintan aanu ku eegi doono qodobadan. Maxkamad dastuuriya suurtagal tahay in lagu dhawaaqo doorashada ka hor. Maxaa horyaala ra'iisul wasaaraha cusub ee la filayo? Maxaa laga filan karaa mucaaradka iyo madaxda maamul goboleedyada marka la gaaro? Waa maxay doorka beesha caalamka ee waqtigan oo kale uga bannaan siyaasadda Soomaaliya? Warbixintan waxaa qalinka u qaatay Ustaad Cabduqaadir Maxamed Faarax Dulyar, waxaana wadajir u soo jeedinaya anigoo ah Maxamuud Sheekh Cumar Milaano iyo Luul Shahaada Cali Shaaluw.